soddonkii bishii Juulaay sanadkii 2005 diyaaradda nooca qummaatiga u kaca ah ama helikobtar ayaa dul maraysay buuraha silsiladda ah ee u dhexeeya Uganda iyo Suudaan xilli ay aad hawadu u xumayd. Waxaa dhacay intaas kadib ilaa iyo hadda waa sir aan cidi ka sal gaarin, laakiin diyaaraddii waa ay burburtay iyadoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee Suudaan John Garang. 2005 Khartoum waxay ahayd caasimadda Suudaan oo idil, laakiin dalka waxaa kala qaybiyey dagaal sokeeye oo waqti dheer socday, kaas oo koonfurta Suudaan ay ku doonaysay inay uga go'do waqooyiga Suudaan. Kala qaybsanaantaas waxaa udub-dhexaad u ahaa John Garang Dambabyor, hogaamiye kacaani ah oo wax yar ka hor inta uusan dhiman loo magacaabo madaxweyne ku-xigeenka Suudaan iyo madaxweynaha ismaamulka koonfurta Suudaan. soo dhawow walaal John Garang, dadkaaga iyo dalkaaga ayaan kugu soo dhowaynaynaa. waxaan u imid inaan wadajir uga shaqayno sidaan dhammaanteen hor ugu socon lahayn oo gacmaha aan isku qabsan lahayn. John waxaa hogaamiye u ahaa jabhadda SPLM oo dagaal kula jirtay dowladda Suudaan tan iyo 1983. Garang waxa uu ahaa lixaad ahaan nin aad u weyn oo leh gar weyn, taas oo si fudud uga dhex saari kartay dadka oo ka dhigaysay mid dhaqso la aqoonsado. Waxay dadka qaar ku tilmaameen inuu ahaa nin ay adag tahay in la fahmo oo leh burji, halka kuwa qaarna ay ku tilmaameen nin aan dulqaad lahayn oo aad u naxariis darnaa. John Garang waxa uu ahaa shakhsi khatar ah oo lahaa burji iyo hiibooyin gaar ah oo aad u weyn oo intii ka agdhoweyd aysan lahayn. waxaan taas qirayaa anigoo ka mid ah dadka ugu necab Garang siyaasad ahaan. taas ma ahan mid aan ka suli doono ilaa weligay oo runta waan sheegayaa. John Garang waxa uu ahaa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa SPLM, sidaas darteed waxa uu noqday nin shacbiyad badan maxaa yeelay dadku aad ayay u jeclaayeen. laakiin markii halganku sii xoogaystay waxa uu sameeyey qaladada aad u fara badan. John Garang waxa uu ahaa hogaamiye Afrikaan ah oo dhaqsi ka soo kabsanaya guuldarrooyinka. waxa uu xambaarsanaa riyooyin ay ka buuxaan ballamo badan oo wax uga beddelay waaqica Suudaan, laakiin waxa uu ku dambeeyey kala qaybinta Suudaan iyo in koonfurta Suudaan ay ka dhalato dowlad fashilantay. John Garang kama soo jeedin qoys ciidan. waxa uu ka dhashay qoys masiixi ah oo ka soo jeeday gobolka Niilka sare ee dalkii la isku oran jiray Suudaan. waalidkiis waxay dhinteen isaga oo 12 jir ah, wuxuuna ku soo koray agoonnimo. Garang ayaa aad ugu fiicnaa waxbarashada iskoolka, taas oo u suuragelisay inuu ku guulaysto deeq waxbarasho oo Maraykanka uu ka helay isaga oo bartay dhaqaalaha. shaqadiisa ugu horreysay markii uu Suudaan ku soo laabtay waxay ahayd sarkaal ciidanka Suudaan ah. si dhaqso ah ayuu u dallacay, wuxuuna 1983 gaaray darajada korneel. inkasta oo uu Maraykanka wax ku soo bartay, haddana waxaa dowladda Maraykanka la dhexeeyay xiriir aan jacayl nacayb midna ahayn, micnaha aan sidaa u wanaagsanayn. qaar ka mid ah madaxda Maraykanka ayaa shaki ka qabay Garang oo ay ku tuhunsanayeen inuu u janjeero dhanka shuuciyadda. anigoo waqtiga ahaa macallin jaamacadeed da'yar, PhD-na diyaariya iyo ciyaaryahankii kubadda kolayga ee geeriyooday Manute Bol ayaa ahayn kuwii ka dambeeyey in Maraykanka uu soo dhoweeyo, maxaa yeelay waxay u haysteen inuu ahaa shuuci raacsan nidaamka shuuciyadda. sidaas darteed ma aysan rabin inay wax ku darsadaan ama ay wax la yeeshaan qof aaminsan shuuciyadda. aniga iyo Manute Bol waxaan u tagnay Koongareeska Maraykanka, wasaaradda arrimaha dibadda ee aqalka cad, annaga oo ku nira fursad siiya halkan ha yimaado ha iscaddeeyo. haddii aad isleedihiin waa shuuci oo aadan waxba tarin, wuxuu xaq u leeyahay inuu aado adduunka meel alaali meeshii uu garabka iyo saaxiibtinimo ka heli karo. waxa uu ahaa nin ay hogaamintiisu muuqatay xilli uu aad u da'yaraa markii la saxiixay heshiiska Addis Ababa sanadkii 1972. caddaynta ugu weyn taas waxay noqon kartaa in Maraykanku uu doortay. dowladaha weyn waxay badanaa doortaan shakhsiyaadka ay u arkaan inay ka soo dhex bixi karaan dadkooda. waxay marka ay yar yihiin ku shubaan afkaartooda si ay ugu adeegaan danahooda. Maraykanka ayaa ka soo waday Dar es Salaam oo geeyey jaamacadda Iowa, halkaas oo uu ka sameeyey waxbarashada bajularka, mastarka ilaa PhD-da. waxaan rabnaa Suudaan aan u simannahay dhammaanteen, iyadoon qofka loo eegin isirkiisa, midabkiisa, diintiisa. waxaan doonaynaa waxaana mideeya oo aan ku wada abtirsanno Suudaan ahaan Suudaan cusub. xiriirka siyaasadeed ee John Garang uu la lahaa Maraykanka ayaa xoogaystay sannadihii 90-meeyadii, wakhtigaas oo yeesheen hal cadow. labada dhinac waxay ka soo horjeedeen hogaaminta madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashir. 1996 Maraykanka ayaa xiriirka diblomaasiyad u jaray Suudaan. sanad kadibna madaxweyne Clinton ayaa amray cunaqabatayn ka dhan ah hantida Suudaan ee dibadda taallay. isla wakhtigaas Maraykanka ayaa malaayiin dollar siiyey jabhadda uu hogaaminayay John Garang iyo SPLM, kaalmadaas oo al-Bashir aaminsanaa inay maalgelinayso dagaalada ay SPLM ka wado koonfurta Suudaan. marka Maraykanka loo eego, laba arrin dartood ayay taageeraha ugu fidinayeen Garang. midda koowaad, inuu Maraykanku uu Suudaan ku eedeynayay inay taageerto argagixisada, inay ku dhaqanto siyaasadda xagjir ah iyo aragti ka dhan ah Maraykanka. arrin kale oo muhiim ayaa jirta,
kooxaha midooda Maraykanka iyo qolyaha u ololeeya Kirishtaanka waxay labaduba taageersanaan John Grant oo ay u arkayeen inuu dagaal muhiim ah ka wado geeska Afrika. waxaa jira dana ay Israa'iil lahayd, waliba Israa'iiliinta Maraykanka oo raadinaya hogaamiye reer koonfur ah oo Israa'iil taageersan, iyagana ay garab istaagi karaan midnimada xaqiiqda ee Suudaan oo aysan cidna ka maqnayn. waa in qofka Suudaan u dhashay oo Khartoum yimid aysan muhiim ahayn halka uu ka soo jeedo, laakiin ay kaliya noqotaa qof Suudaani caadi ah oo Khartoum yimid. aragtida Suudaan mid ah waxay udubdhexaad u ahayd ideolojiyada siyaasadeed ee John Grant. waxa uu si weyn uga soo horjeeda qabyaaladda iyo kooxaysiga oo si weyn u hareeyay taariikhda siyaasadeed ee Suudaan. bishii Juulaay sanadka 2005 John Grant ayaa heshiis nabadeed la saxiixday dowladda Suudaan. heshiiskaas oo ujeedkiisu uu ahaa in la soo afjaro dagaalka Sokoye ee socday 21 sano. waxaa lagu heshiiyey xabajoojin rasmi ah, ismaamul ay Suudaan yeelato, awood qaybsi, iyo in la qabto afti ay koonfurta Suudaan ku gaarayso madax bannaani 6 sano kadib. Grant wuxuu ka mid ahaa saxiixayaasha heshiiskaas, laakiin ma noolaan si uu u arko dhaqangalka heshiiskaas. heshiiskii iyo geeridiisa si degdeg ah ayay ku dhaceen, wayna isku dhowaayeen. kadib markii uu saxiixay heshiiska, Grant wuxuu bedelay go'aankiisa, wuxuuna yidhi ma doonayno inaan Suudaan kala qaybinno, maxaa yeelay Afrika in ku filan waa la qaybiyey. haddii aan Suudaan qaybinno waxay wiiqaysaa danaha iyo awoodda Afrika, waxayna sidoo kale sii fogeynaysaa xalka Suudaan. taas ayaan is leeyahay waa sababta Grant uu ku noqday bartilmaameed. ma jiro hogaamiye reer galbeed ah oo dan ka lahaa ama maqli karay dib u heshiisiin uu Grant la galo waqooyiga iyo in Suudaan sii ahaato hal dal. heshiiska ayuu John Grant ku helay 2 mansab oo kala ah madaxweynaha ismaamulka koonfurta Suudaan iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Suudaan. dadkii yaqaanay waxay sheegeen in waqtigaas uu ku mashquulsanaa sidii uu dhisi lahaa Suudaan xooggan oo mid ah. qiyaastii dad kor u dhaafaya 1 milyan oo ka soo kala jeeda koonfurta iyo waqooyiga Suudaan ayaa ku soo dhoweeyey Grant magaalada Khartoum. qiyaasyo kale ayaa tilmaamaya in intaas ay ka badnaayeen dadkii soo dhoweeyey Grant. markii uu John Grant yimid garoonka diyaaradaha Khartoum, waxaan si toosa u aadnay fagaaraha cagaaran oo halkaas oo ay dadka iskugu soo baxeen. markii aan kornay masraxa, John Grant wuxuu u taagnaa dhankayga bidix, Dr. Cali Ismaaciilna midigteyda, anigana dhexda ayaan taagnaa. reer koonfureedka tiradooda aad ayay u badneed, waxayna gobollada kala duwan ee koonfurta Suudaan uga yimaadeen si ay u soo dhoweeyaan Grant. markii John Grant arkay shacbiyaddaas, waxa uu yidhi aniga oo xukumi kara Suudaan oo mid ah, weliba shacbiyad badan, ma rabo inay kala go'do. markii loo dhaariyey inuu noqdo ku-xigeenka Al-Bashiir, waxa uu arkay ku dhowaad 6 milyan oo qof oo ka soo kala jeeda qowmiyadaha Suudaan. taas waxay ku dhalisay dareen midnimo iyo inuu xukumi karo Suudaan oo mid ah. laakiin dhinacyada ajnabiga ah ee siin jira taageeraha maaddi iyo mid maaliyadeedba, aragtidaas ma aysan jeclaysan oo si weyn ay uga soo horjeedeen. Grant ayaa markasta doonayay Suudaan mid ah, laakiin ugu dambeyntii waxa uu aqbalay in koonfurta ay si rasmi ah uga madax bannaanaato Suudaan. 3 isbuuc kadib markii uu noqday madaxweyne ku-xigeenka Suudaan, waxa uu soo baxay safar uu ku tagay Uganda, isagoo ku adkaystay inuu isagii iskiis u qorshaysto safarka oon cid kale soo faragelin. taas waxaa ka sii daran inuu ka qariyay madaxweyne Al-Bashiir. markii uu go'aansaday inuu Uganda aado, waxaan ugu tegay xafiiskiisa, waxaan u sheegay inaan amar ka haysto madaxweynaha Suudaan, amarkaas oo ah inaan meel kasta u raaco madaxweyne ku-xigeenka. wuxuu igu yidhi Juba ayaan aadayaa, meelo kale Uganda, sidoo kalena kaymaha koonfurta Suudaan, waana sidaas qorshahayga. waxaan ku yidhi mudane, amarka madaxweynaha ma jebin karno. waxa uu wacay Cali Sheekh, isagoo ku qanciyey inuu kaymaha koonfurta u aadayo arrimo u gaar ah, muhiimna aysan ahayn in la raaco, laakiin uu ii baahnaan doono marka uu aadayo safarada kale. waxaa la ii faray inaanan raacin, waanan ka haray. waxaan tegey madaxtooyada oo aan kula kulmay John Grant. waxa uu ii sheegay inuu arrimo gaar ah u safrayo Uganda. waxa uu ii faray inaan u safro Cambridge, waana isaga ku matalo. markaan sidaas uga soo baxay xafiiskiisa, waxaa ii yeeray Faysal oo la taagnaa Janaal Bakri Xasan Saalax. wuxuu yidhi, Qaazi, ninkan haddii aad ilaalin weysaan oo aad ka hartaan, wuu dhimanayaa. waxaan ku idhi yaad ula jeedaa? wuxuu yidhi John Grant. waxaan ku idhi John Grant wuxuu aadayaa safar qaas oo Uganda ah. wuxuu yidhi wax safar qaas ah ma jiraan, hadda waa madaxweyne ku-xigeenka Suudaan, waxaana waajib naga saaran yahay amnigiisa, waa inaan ilaalinaa. haddii uu keligii safar iska aadana, ogow inuu dhiman doono, waana waxa dhacay.